anigu maan kaalay kalsooni siisay kalaman anigu maan kaalay kalsooni siisay kalaman anigu maan kaalay kalsooni siisay kalaman aryaada bariga war ma haysin intahaan taqabada aqaar ka sare banaan yahay taa kana qabyada tahay qalabka waan sidaynay waan qaraabanaynaye kay qalooc la taayo wayno qoray afkiis ninkaan dhoof ku iman bay dagaaladu dhibayaan eesaantii masiyo good madax shabeelleefta malageedi baa galaye war aan idin akhriyo qodobada aan ku heshiinay war saxaafadeed ka soo baxay beesha kalaman oo maanta iskumaan ka noqotay xaaladda taagan markaan aragnay damaca iyo dulmiga kukuuyaha kudhiingaha kamuungaha iyo kalajiinka hamiya kenya yote markaan aragnay dareenka kacsan ee bulshadeenna aan ku metelno buuqa iyo isbarbaryaaca waa tugwaan gubana markaan aragnay ismoogaysiinta iyo aamusnaanta madaxda kore liidaryaan gubana bahda kalamaan waxay soo saartay go'aan ka kooban 3 qodob iina taatu koow in la joojiyo sunta cagaaran oo la ogaaday xataa inaan xayawaanku daaqin miraa ya kenya 2 in ciidanka caloolaha buuran ee kenya oo markii hore sharci darro ku soo garay dalkeenna cagaha ka qaadaan ciideenna oo la ceyriyo It was true they come our country agrish askariya kenya yote qodobka 3 in aan la aqoonsan xuduud beenaadka ingiriisku sameeyay oo lagu kala qaybiyay bulshadeenna gaarisa aan wajeer waa tuwaan gubana bariga heebaankadaad madaxuuga wada jartay ugu dambayn go'aankan wuxuu dhaqangelayaa markii laga baahiyo KNN war annaga biyoon kuma aanan heshiinayo wax ninkan u daldalaye waxay kalamaan uga digaysaa bulshada Soomaaliyeed kala qaybsanaanta iyo isbarbaryaaca taasoo keentay in beer la fayeeshay anigu waxaan dhiilay ba'daada iyo beera la fayeeshadaada ma aqaanihu badayda baad ku dhibi ma badayda baad ku dhibi ma baraarna waa buukay aqaan badayda baad ku dhibi ma ambaraarna waa buukay aqaan haye war waxba hadaalinina Kenyaati shirib ma yaqaan war ana u fasiraya Kenyaatiga shiribka siyaan gubana habana kubatiya weewe in low bariga heebaankadaad iskala waafaqday war hadii hore loo yiri waa shay macaan cuna malahiga hadda waxay xaaladdu maraysaa waa shay macaan qota shidaalka war maahan waa shay qaali ah dhaca shidaalka weey war Abu Asalaad Abdullah wuxuu yiri biyaha anaga iskale badan inuu ma aha war waxa la yiri warka waa badisaane bulshadii xumaan lagu falo ficil sameyn weyda fashil baa ku dhaca aadna waa kala fogaata hey basaan bisyoon badaynay baasay ka tahaye ha u basaan bisyoon badaynay baasay ka tahaye ha u basaan bisyoon badaynay baasay ka tahaye ha u basaan bisyoon badaynay orbadu waa basta marka leeda ma bada gubata waa biye nimayo waxaan sheegaa horta taxsiyaatiin tabarna maliidina tamam marata taxso hoosin aqaltiir laanti kaligi ma taagne haddaynan istaakulin tabar yeelamayne ka tashada cadawo isku tiirsanada Soomaaliya mariya laba waad murgucateene masalaan gumeysku sustaa boqol masiibaahe waa madan mahar weyn haduu meel yar ka helo halkii waa laga mudayna weynad ka maagtaay qorsaas maana waxay ahayd taraanturootay kuftay dhacday ayaa taqaan war hadda ka hor wiil baa aabiis wuxuu soo gaday jar macaws Indonesia markaas wuxuu maqlay waxa dhintay madaxweynaha Indonesia wuxuu yiri ha dhinto darxumadan ba ku nacay marka Kenya ha baxdo qaadka iyo qashinkan ba ku nacay wadamada waxaan la yaabana dawladda Kenya inta xiriirkii Soomaaliya kala dhaxeeyay jirtay ayay haddana soo rartay maanta qaadkii miya waraad anu waxaan la yaabanahay shacabku haday dawladaha u jawaabaan madaxdu maxay qabanaysaa xitaa dadkan dawladooda ka horeeya arinaga shibdhe dawladu waa shacabke war qaranka Soomaaliland hadaa ictiraaf lahaydeen qaadkana annaga idin keeni lahayn Kenya annaga idin dhexaadin lahayn aana khalisa dawaataas adna waxaan ku nacay digsi markii loo
هسه خدام وعلى لسنا warkan iyo madaxweyne xaafa jiro la soo heshiinaya arrintaana dhameynaya iswaalinina aryaadaha hadda ka hor dawladdii kacaanka Soomaaliya Itoobiya markay dirirayeen Cabdiqaasim Salaad Xasan oo wasiira la weydiiyo waxa la yiri Kenya iyo Itoobiya waxay ku heshiiyeen dagaalka inay wada galaan miis ka dhici kartiin mugaasa Cabdiqaasim ku jawaabay Itoobiya ciidanka ku maqan Kenyana haweenkan u diraynaa mugaasa Kenya cabaado waxay tiri heshiiska waa ka baxay aan Itoobiya la galay ay sheegayaan hadda waraada bariga xilniyaa dhishidayay war hadda gabdhii waa is cadeeyeen oo dagaal ma gali karaan maxaa la sameeynaya war xilliga Cabdilla sheegayo Allah u naxariistay madaxweyne maxamed siyaad barraa wuxuu yiri Kenya hadday jooji weydo gardarrada sarta saddexagalka oo bartamaha Nairobi ku taala noo ballana hoosteedana gabar Soomaaliyeed baa shaah ku karin doontuu yiri waxaa la yiri bahal soo bixi waayo boodkiis ku jire amaas buka warka ku daalinine dawladda Soomaaliya mar dhow war weyn baa ka soo baxaya taakara garoonka Muqdisho waxa ka soo dagay safiir tarsan oo soo cayriyay ee wasiirka arrimaha dawladda Kenya transit ku ahaa oo tarsan gacanta soo qabto Muqdisho keenay war wafdigu waa banaa waxa ku jirta marwada madaxweynaha horta Cabdi Xaashi South Korea ma ka yimid masawaaga waa ku maqan yahay horta tarsan ma iska soo cararaya in raka dambeeyo miyuu ogeyn war ma ee guriga safaaradda annaga leh Uhuru Kenyatta ma noo soo raro nimayo hore waxa loo yiri talo waa wareerta tiirna waa jawaa marka Kenya talada ka wareerti war nimayo gabar baa maanta Facebook waxay ku soo qortay dalkaygu waa ninkayga waana jeclahay gabar kale comment ka dhiibatay oo waxay tiri dalka waan wada leenahay waana wada jecelnahay gabadhiisa markay ka laabatay oo waxay tiri ninkayga lama wada laha wariyaha gudoomiyaha maxkamadda racfaanka gobolka Banaadir wuxuu yiri cidii dambe oo dacwadeeda baraha bulshada ku faafisa ciqaab bay la kulmi doontaa marka hadalka ayaa lagu xirnaa Facebook la wareegayso wariyanta kale leen dacwooda maxkamadda oo adaalada ab Facebook anaga taayeen war dadka dacwoonaya ilaa ay markii suuqa bakaaro gubtay warbaahinta iyo Facebook ay ka dacwoodaan oo ku qasbayeen sababtoo ah cid kale wax u qabata waa waayeen war sargaalkii 60 nin oo shabaabka geeda ku dilay Muqdisho inta laga wacay la xiray taliyay dhahayna shabaab meesha lagu arka hal dilo amarkaas waa ka laabtay war ma shabaabkii aqareena difaaca helay aryaadaha waxa runa miya shaki male inay laba shabaab wada shaqeeyaan war maye ma hubsadiya handafa oo walaalo war adeerow qaadiya qarsho weeye waxa mataanaha war ma ee musug maasugu hang mantaante waryaada waxa la yiri xafiiskii waraaqaha haduu cunug la weydaarto wadada la soo dhoobaya sheeko waafiyaha waa weynki bay saaran tahay safety waaliduye weerarada isdaba jooga iyo waardiya la'aanta shaqada wasiirkii lahaa cid uma weydiis wariya warkii hobkaas leeyay Facebook ma ineen kureebtan ka dacwoono shaqada wasiirkii lahaa cid ma weydiisan waxa kala intiis ka dhaaftiin Kenya waxaan leeyahay ciidankaaga la baxay wala dulmi ku tumada dambiilaheeda dambiila tahay dib u baxay dalkaagii aaday 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 dambiila tahay dib u baxay dalkaagii aaday